يلا سعى ayar. يلا واكا نباسكي ورياضة واكا نباسكي واكا نباسكي واكا نباسكي واكا نباسكي سهلة احنا بنشوف خبرات قويه kadambe gaaskayga
magaalada lafaciisa yow barre sheegdheer eeriyadani muddaa ka maqnaa waxaan dareemay markii aan imidday shalayto horumar badan dadkoo wanaagsan dhaqaalahoo aad u soo kacay mashaariic fara badan oo ka socota eeriyada magaalada oo dabad ay bilaabatay taasoo mahadnaqeeda runtii inta badan ay leeyihiin dawladda Itoobiya ee federaalka ah oo waddanka horumarinaysa iyo dawladda ismaamulka kalalka shaqada ismaamulka Soomaaliya oo tallaabooyin runtii atarane horumar leh ayaan iyadana aragnay taana dawladda ku hadlaya labada dawladood waad baatay la faciisana lagu soo dhaweeyay geedi socodkii aan ka soo bilaabnay waqooyiga Ameerika aan ka soo bilaabnay Mareykanka iyo Kanada ayaa maanta halka aan ku nimid waxaan u mahadnaqaynaa dadweynaha reer Jigjiga ee sida fiican noo soo sagootiyay waxaan aad u mahadnaqaynaa sidoo kale dadweynaha reer la faciise ee na soo dhaweeyay sida wanaagsan noo soo dhaweeyay aad baan ugu shukreynaa waxa weeyaan waxay noo bilaabmay nasri iyo maxaanada midnimo ayaa inoo bilaabantay ugaaskeenuna khayr Allah siiyo waxa uu inoo wadaa waa midnimo marka la helo wax kasto inaga maqan waan helaynaa midnimadu waxa weeyaan waa shay ay diinteenu ay nagu guubaabisay oo diinteenu inagu boorisay oo ilaahayna faraya weeyaan waxa weeyaan waa midnimo marka la inaga helo dhaqaale iyo wixii loo baahan yahay adeeg ee bulshadu u baahan tahay waxa weeyaan waa la helayaa ilaahayna wixii khayr ahayna waafajiyo waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum ugaaskeennii ugaas cabdirashiid ugaas rooble ugaas doodi oo aan u haraadnayn muddo dheerna gaab halkaa inaga galay haddaan nahay beesha gadabuursi oo maanta gaabkii inoo buuxsamay ama xidig meeshiisii yimiday ah waxaan halkan laga bilaabo safarka halkaa iminkaan kaga baxaynaa waxa lagu socdaa lughaya oo arrimo badan oo horumar ah laga samayn doono sida dekad iyo dariiqyo wax sirihi ma jiro mashruucyadaas ayaa loo socdaa dekadaas oo muddo dheer dhaqaalaheenna iyo dhaqaalaha labada wadan hore u kacaya dariiqaad kaleena sugaysaba aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ognahay jigjigada ka dhimitay waan mahadnaqaynaa halkan waan mahadnaqaynaa ilaa halka dadka iyagu joogo kulligayo ee ugu dambaysa ummadda waan ugu caleema saaraynaa waana la sugayaa dhalinyaradii aqoon-yahankii iyo odayaashii hawshan ku soo daalay soo qabanqaabiyay baan marka hore doonaya inaan mahadnaqo war halkan mahadnaq uga soo jeediyo marka labaad shacabka reer la faciisa iyo degmada oo barra guud ahaan ayaan doonaya halkan aan uga mahadnaqo mahadnaqa kale waxa weeyaan guud ahaan ugaasku maanta inuu halkan yimaado oo suldaanku yimaado oo ay dibadihii ka soo hamoodaan oo doktorku dibaddii ka yimaado dawladda deegaanka Soomaalida gogoldhigeega uu madaxweynuhu hogaaminayay ee uu dalka dadka ku maxsuumayay ee dalkii waa nabada kale ee lahaa ee Cabdi Maxamuud Cumar meel walba ku soo maray ee uu afayeenka oo ah gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya Maxamed Rishiin halkan ku soo maray ayaa suura gelisay gogasha wanaagsan ee nabadeed ee maanta dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya taala ayaa keentay maanta in salaadiinteena iyo ugaasyadeena iyo duqeydeeniba halkan ay yimaadaan ta kale xilli barwaaqa oo ilaahayna uu soo dhaweynta ka qayb galay ayaa iyadana wadalkaysan quruxda iyo wanaagga dhulka maanta ku yaala ducadii ugaaska iyo salaadiinta iyo odayadu hadii noo raacdanayna marka aanu guud ahaan waxaan leeyahay dadka maanta hawshan isku taxalluujiyay ayaan guud ahaan u maqlay ee guddiga qabanqaabada ugaasku ay ugu horeyso ee odayaashu ugu horeeyaan ee mataqaana duqeyda iyo garaadada iyo salaadiinta iyo dadkeena mataqaana ugaasku dadku xukumo salaadiin hoose jirto ka sii hooseysa oo reeraha xukunta oo uga sii hooseysa oo hawshii fududaynayso qaab dhismeedkiiba fududaanaya intaas oo dhan baan aanu mahadnaqayga inaan soo jeediyo doonaya aad iyo aad baad u mahadsanyihiin ducada degmada iyo guddigiisa fulinta ee shalay ilaa maanta halka inoo taagnaa ee barina inoo taagan ee gaadiidka iyo guud ahaanba dadka gaadiidleyda iyo ganacsatada u mahadnaqaya kullay wada gaarsiin mayse guud ahaan dadka hawshan ka qayb galay baan u mahadnaqaya ugaaskana ugu dambeyn waxaan leenahay ducad noogu soo guraanada ugaas annaguna gacmahan warsan ilaahay wada barin waxaan amakaari waxaan u mahadnaqaynaa ugaaskeenna ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi iyo inta la socota ee salaadiina ee culummo leh ee sharaf leh ee madax leh ee maamul leh intaasaan gacmo furo ku soo dhaweynayna haddaan nahay bulshadii reer la faciisa iyo samaroon dhammaantiiba salaamu calaykum marka waxaan leeyahay ugaas
ilaahay ha kugu karaameeyo ummadda intaan la eg ee halkaa maanta adiga kaaga hor timiday allah kugu karaameeyo adiga iyo suldaanka kugu soo dhoweeyey meeshaba waxaan idinkula dardaarmayaa tuulada lafaciise ummaddaa idin soo dhoweysay ee idiin dhiibatay wilaayadoodii iyo xilkii idiin dhiibatay idinkuna cadaalad ku dhaqa una duceeya barwaaqa allah ina siiyo muddadaa dheer aan kala maqnayna waxay ahayd un dhibaatadii uu dhergigu geystay unbay ahayd waxaan ku kala maqnayn oo halkaana geeyey marka iminkana ilaahay mahadii waan soo noqonnay dhulkeenniina ilaahay dee farxad buu ka riday waxa ugu yar markaan tusaale yar soo qaato innagii af soomaali dugsiyadeennii lagu dhigayo oo afkeen